hay-addan waxay leedahay qaranka waxay u leedahay ama u leedahay ahmiyad gaar ah ayay u leedahay marka koowaad de hay-addani waa wejigii qaranka qofka Soomaaliya imaanaya marka ugu horeeya oo airport ka soo dego ama deked ka soo dego badda ama xuduud ka soo galo de meesha ugu horeysa ka hor imanaysa waa hay-addan ayadoo ka soo dhacay marka first impression waa last impression marka ugu horeeya qofkaasi wuxuu ku arko qofka Soomaaliga ah meeshaas jooga serviceska bixinaya ayay Soomaalidu ugu dhantay taasi Soomaalidu ugu egtay marka sidoo qofkaasi u ekaado ayuu bay Soomaaliya u ekaanaysaa sidaa darteed waa wejigeennii waa inaan ka wada shaqeyno inay qurxoonaato qofka khidmadaas qadimaya ee dadka siinaya waa inuu yahay qof qurxoon oo labisan oo iimaan qaba oo nadiifa oo hufan inuu yahay oo tababaran inuu yahay la rabaa intaas markuu isku darsado ayaa wejigeenu uu qurxoonaanaya laakiin haddii ay si kala soo baxdo wejigeenu uu faal xumaanaya sidaa darteed hay-addani waa in la qurxiyaa waxaan ku waafaqsanahay hay-addan inaan qurxino oon dadkeeda maskaxda ka qurxino madharka guudna aan ka qurxino waxaan diyaar u nahay inaan empower garayno shaqadan hay-addan shaqaalaheedana inaan u roonaano haddii ilaah yiraahdo waa ku dadaaleyna maxaa jira waa wejigeennii ahmiyadda labaad ay leedahay waxaa weeye waa ahmiyad amni waaye in and out waddankan waa meeshii laga baxay meeshii laga soo gelayso ayada maaha hadda baasboort baa laisoo siiyey oo 5 meelood baa lasoo mariyey checking kana haddana 1 2 3 4 5 oo marba wejiyadeeda laisoo eegayay farahayga sidaa darteed haddee amniga qaybtay ka qaadanaysa waad garanaysaa amniga ahmiyad gaara ayay u leedahay hay-addan waa meeshii laga soo gelayay waa meeshii laga soo baxay hadduu qof waddankan soo galay uu dhib geysto meesha lasoo aado ee la yidhaahdo xageebu ka yimid waa hay-addan qofkan haddii uu qof waddankan ka baxay uu dhib geysto amni darro keeno meesha lasoo aado ee laga raab qaadaa waa hay-addan sidaa darteed hay-addani waxay leedahay ahmiyad amni oo gaar ayay inoo leedahay dakhliga gudahana ee soo xaroodana waaba laga sheekeeyey iyadana waa qeyb kale oo ahmiyadda ay leedahay ay waddankan u leedahay hay-addan ka mid a waa hay-ad soo gelisa dalka dhaqaale soo gelisa marka hay-addan haddii ay tahay sharaftii iyo karaamadii inay dalkeena la yimaado oo loo xiiso oo wejigeenu qurxoonaado ayadaa mas-uulka ah ama qeybta ugu weyn kale in dalkeena amnigiisu wanaagsanaadana qeybta ugu weyn bay leeyihiin in dhaqaalaheenu kordhana qeybta ugu weyn ay ka leeyihiin marka hay-addu sidaasay amnigeed ku leedahay mar hadday sidaa tahay marka hay-addan waxaa laga rabaa daacadnimo waxaa laga rabaa hufnaan iyo ilaalinta systemka iyo shuruucda u degan hay-adda in la ilaaliyaa laga rabaa integrity dadka joogaay waa in ay lahaadaan dad highly integrity-ga oo aad u weynyahay u sarreeya inuu noqdaan la rabaa maxaa jira mas-uuliyadda intaa la-eg ay xambaarsan yihiin marka ayadoo dadka dawladda u shaqeeyo o dhan laga rabo sidaas haddana ayagu way ka mas-uuliyad badan yihiin mas-uuliyaddaas intaa la-egaa laga rabaa waxaan ka rabnaa inay saas u ilaashadaan laga rabaa mas-uuliyaddaas ilaaliyaan